بعد جو جو نكبح حدودنا ورقنا كامل وفارح رضوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود هذا ميرو بيتود عالم كجوكتان وواس كتقبروها كامل وفارح ولا الكيس معه كي كيرا بشر بالله مطارين حسن قرص صاحب كيس قرش ودرس كيس كنا ولا وراونا قرسيكو ساعة جاب كجلكت مع الشوريب بالناوين شنطة بقى بغري ميرو بتعالم كجوكتان سود هذا oo sii shargareeyay oo sii gudbiyay maanta waxaan ka badbaaday ilaahay iga badbaadiyay ilaahay baa na uunta adduunyada keenay maanta waxaan ka badbaaday dil qorshaysan iyo handadaad qorshaysan baan maanta ka badbaaday ma sha Allah laakiin waxba la kala qaadi maayo waa wiilkii kuumadaha ahaa weeyaan dil qorshaysan iyo handadaad qorshaysan baan maanta ka badbaaday aniga iyo carruurtayda ilaahay ha nabad geliyo ilaahay nabad ha na siiyo أحمد مذوبة عندنا ديش مريكان بيقولوا جارس لكن دعوة هذا الفرميسا هذا النقطة شاكو العقد كقاطو أما كوا سردون كوجود جري سنيج كروفيانيته مجرد هاي وهذا يدقبله باللامنسا هدو أحمد مذوبة كتالي أمريكا إيه هذا أنا وتاكسي بير أنا هاي موادن أمريكان أنا هاي يا هذا كلا عداريش قشة عجيبة عدا هذه عجيبة وهم يقبضوا ما شاء الله لكن وحنا كسورة هاي والله السعودة وأن بقولك وبقول أوجهاي إن أنا أمريكا كوسو جرهاي أحمد مذوبة معارضة عن معارضة يو حقيقة أن شيء يرنت أن شيء جوجين ما يصير حماتي سير دبوغضي حاربي بهاش يسوب التريسة ونتجي وأنا هيركات كو إداري شين ويلك هذا حرن هيركات هذا كو إداري شين ويلك حرن ويا كان حرن حمارض حرتي ما ورمض حرتي هيرك اللي كو إداري إلى الله هذي قف كشجبة ولا هندل يلا داي ما أنت وحاد علي أنا عرورتي إذا يسلس عنه ما شاء الله عرور عند الله وين أنا يسلس عنه وهذا يا سوق السوق هذا سوق مركز السوق هذا وان دري وحبان وقد قضي يسميني ميلت كم بكجري سلان وحي سوق حيقسن الكاس كتورت بقرة هذه حيقسن أو أنا مرينا يتوكان كنفت الكيسون أحمد مذوبة وفريبا أمي سنة ولا عقد الحشويا يا قيل ذي نمكر سوب بودي هنددات يا قراع أحمد وحكشكتي محاذا كشكتي ما أنا وحاويا ورفريدم اوف سبيتش بنايستا ودن حرة ما كنا ولا لو جوجين ما يسلان يردي كرقبته أو يخسن أو دجالبيشو أو جرس أحمد دت كدت كي حكشريشان درير كيس بتعبره النقطة قاتل بعد الريال كلنا تجا مكسماينا كحيك كسماي دال رير كليه اسكواله سيشر جري هذه لكن وحن سمينا إن شاء الله هدو إلى هيران دقسي كوركيجا جوج هدي لقى بوبي دقسي كوركيجا سارن هدي لقى بوبي أو هندلات سيس عطري سيس عطو وحاول إن أنا ضد بدل لا دعي أنا ضقبله ولا دعي دونه أو لا دعي دونه دي ما تسمعينه وما الصعدة وما الصعدة سوالينه وما الصعدة وما الصعدة ميل اسكودلو فيات لا اسكو حرنا وما الصعدة عليه ما أنت هنددي كل ضد بيزنس لاتين بيزنس هيستاتين بلنبا وحن كو قاداي inaad ma garanaysaa duqbilow uu toos cidi saaro siyaasiyiin buu toos ka saar jiray laakiin dadka ganacsatayaasha ee ganacsiga beenta ee dadka beenta u sheegayo ee lacagaha Axmed Madoobe uu kismaayo dhuxusha ku gato cadeeyo way cadeeyaan aad iyo aad dhigish shargaray aad iyo aad shargaray si gudbay lacagta Axmed Madoobe ee uu dhuxusha ku gato ayaa lagu cadeeyaa dukaamadan ogahay Minnesota ku yaalo ee Minneapolis ku yaalo lacagtaas soo diraa business baan leenahay oo beere ayay sameeyeen Dubai bay lacagta laga soo qaadaa ayadoo xirxiran yaa Mareykanka bangiyo loogu sameeyaa business bene toos buu idin saaraya IRS tuu idin ku soo diraya IRS tuu tooska idin saaraya oo wuxuu leeyahay duqbilow IRS tuu wuxuu ku leeyahay tuu email u diro bal hal la fiiriyo meelahaas
حساب حر وناكسنة هاللغو سمية بيسنس كان مركا الله يري هذا ريسون كأد دقبلو ونوتو سيسيدنا محوية إنان شيغو أنه lacagta Soomaaliya ee black dollar ka loo yaqaano ee musuqmaasuq ee dhuxusha la gatay dadka la dilo jirka meedkooda la dilo yaa lagu cadeeyaa wallahi soo shargaray wallahi Axmed Madoobe inuu san waxba iga qaadin Axmed Madoobe iyo kuwa taageersan waxba iga qaadi maayaan waana ka wiin gareynaya insha Allah dollar arinta dhibta waa arintan meel dhibta barnaamijkan laakiin sir kale oo badan ban haya aadi dheesto waxaad ka dhawaaqayseen jeel ku yaala jigjiga ku yaala Soomaaliya waxaad ka dhawaaqayseen jeel ku yaala jigjiga iyo Ethiopia ku yaalo yaad ka dhawaaqayseen jeelka ay dawladda Ingiriisku dhistay ee Viad la yiraahdo ee dhawaan dhowr bilood ka hor gacanta laga qaaday jeelkaasi cadaab baa ka socdo dil xun baa ka socdo kufsi baa ka socdo illa qariyaal raba that's why ay dadku boogta u gaartay وان يا برهي موقت آد بانو يا برهي آد بان وحولي وردادكو هيدكم حاوة قارسي والله سودو هذا سيشر قري ورهيدكم حادتكو هذا إلا نكوا سياسة دانا الرقي سياسيين وحبات كالشيء جرتم الله إلا وابا ما أوقية إلا وحان إنتي لعاكتي يسلع علي يا الله قلت لقال إن داد قارة لقو عذابك لقو قارسي موقت هل كان مركي مرس يعني أرنتا عن ما ندوي تكولال كدتك قارسي هيدكو هذا قارسي الله وذا دواقيين بان بارتان كذا صح شيء دوقلي بناك كيريا وركاء مسين إن شاء الله دلر محوية إن سرته وضقبله بناك كنا سرته وضقبله بناك كنا ويحاول عذابك كسماية كجروي عذابك كسماية كجرو إدتك اللي قد جرد لي وكاله أوكي نيك سردونك هيشتو خالد شيخ عبد الله اللي يرادو هيشتو سردونك جبلان هيشتو يان تاريخ دي صو صحة والله أنا ميلا لو قال لي حنا نبغى نضبله كورستاجي هذه دقيشت هرتا خالد شيخ عبد الله سيدان هوري هالكن عن قرآن لو سقرا هالكن عن كشري وحاوي وحكتر سناجر إذا ماذا سردونكا نيو بوليس سيدا كرين يدين شجر يدي كويرنا وحكتر سنة إذا ماذا الاتحاد كتر سنة مقرر ساي الاتحاد كبربري وكتر سنة أوكي نيو بوليس كمركي وكبير شغل نوعيبو هاي نيو بوليس كمركو كتر سنة شغل نوعيبو هاي شغلو هاي بان يدين شجر دقيش وحوها تليها ان حدودها نيو بوليس كا حدودها الصومالية إثيوبيا ودحية كل الكسرات ودحية نيكا سو حريبوها نقشد اي كوشقينا يا عبد إلي وكوشقينا يا مستضبقو يا قبيل لسكو الديني نيكا كيني ايديادا كيريبوها وكدلعي تليها حدودها وكدلعي وحو دلعي تليها سردونكا نيو بوليسكا ee dawladda Itoobiya u dalcay aadi dhageysto halka markuu istay ya shaqadii niyuu booliska iyo amnigii kilka shanaad ninka keenay ee dadka toojargareyn jiray cabsida dadka ku beeray ninkaas oo aadi dhageysto cabsida ninka ku beeray ninkaas oo sheergareeyo si gudbiye waxa dhacday in niman Abdi Ilay iyo ninkan isku dhaceen la yiraahdo Khaalid Abdullah la yiraahdo inay isku dhaceen oo waxay isku qabteen markay isku qabteen siyaasadii يا خالد عبد الله يا سردوك يستي يا دور وزير عبد إلي هذا كور حير جري كعدون كربينا حيرك كتورة في جنبي كوسا بيان نيك الشريعي دير الدواء سوق خالد عبد الله يبغى هذه دقيشت عبد إلي مركا وضريمي نيكر إنه حلك كقاعد الربو أمني يودن مقرر ساي مقع بالليل إذا ما سردوك مقع كليل هاين حلكي وكقاعد الربو وأركي يا عبد إلي وحوا نفسدي شو بقي نكي وكتقلوش والله أنا أما إسلامها سوي هنددان أما الرجال سوي هنددان أحمد مذوبة يدقبلوا ما ملكي سواء سهيان هذا معنا والله وايس هيان ليج والبقي يارين والبقو السر أو سكر يدقبلوا بلمبو كقاعدين وبناك كانوا ومدن اللي وذاك هل كان مركي مرش يعد إلى وفيجي نكي أها خالد عبد الله شقدي بكفيجي خالد عبد الله هو اسكتك عبد إلي عبسي بدن بسو وجهده صوبته نكر عن كهالله ما أنت سنساتيف كأه دقبله محاذا هذا الشيء اللي وصل هندليه يا وحاويان عبد إلي وبقى وحسن خالد عبد الله حلكو كاق هذا الربا بجر حلكو كاق هذا الربا وكوسو السعودة وانا تكورتك تاسي شرقرية او سي قد بيه إن شاء الله أنا يا أحمد مذوبة أنا وين قريني أنا يا أحمد مذوبة
aniga ayaa wiingareynaya adeer macaan adeerka cali shacabo sidii loo lahaa ma wiingareynayo walla cabdiilay uu ka wiingareeyay anigana cabd axmed madoobe iyo sirdoonkiisa iyo taliskiisa magaranaysa ee gamuuray ee fadhiidke wallaahi wabillahi tallaahi ana ka wiingareynaya insha Allah hadduu ilaa yiraahdo afar islaam baa xanaaqi ixtiraamaynin sharaf darreeb waana sii wadi kuwa maanta handadayow waxay ka wanaagsanaan lahayd idinkoo si wanaagsan intaad ila fariisataan idhaho warkaalay duqbilow war in adeerow maxaa tabaraysaa war maxaa jiro oonu hadal iswadaarsan laakiin inaa aniga iyo carruurtaydii aan safe aan dareenno aniga iyo awlaadaydii inaan unsafe aan dareenno oo cabsi nala geliyo la yiraahdo axmed madoobe wax ka sheegtay adeer axmed madoobe wuu dhacayaa Soomaali baa ka badan xoog iyo qarracna ku haysan maayo Kismaayo iyo Jubbaland xoog iyo qarrac ku haysan maayo ma garanaysaa dadka aad dilooteen ee jooga Kismaayo joogo ee xabsiga Fiyaad aad cagaha kaga qaracdaan duqbilow waa ka madax bannaayeen halka markay marayso يا عبد إلي نرشي سوء بقي والله وبالله طلع بين ما حلك إلا قاتو كبقي أحمد مذوبو الله الله وحير أذر كالي ونكا ننطلبان نهايه وانا سكوتنا عناه خالد إيقابو خالد نوانيكا كيني شرعيقا ماتا نيو بوليسك اي كو شقيان اي دنع سردونك ايه وليبا حدودها ايه إلا هادا الرئي توبيا ويداواني يعني نيكا كيني وخالد شيء عبد الله وي وانيكا كيني إن مقرر سايا قبيل ليسويدية whoever going in Ethiopia whoever wanna go in Ethiopia or border كسو قد بإلهو من نقطة قلدغب إلهو من نقطة للكا دين مقرر سايا وقويقة صوماليا إلهو من نقطة للكا أذو قاي بدلان من نقطة إلهو من نقطة بلدوين دين عيدا هادي وقف صومالي قليو إثيوبيا قليو نيكا شرعي قادة جيه بوليسي قادة جيه ونيكا كسمايا مانددكو قراعيوي وانيكا كيري إن مستدوقها قف كستا مستدوقها قاد لكن نين أنا أهين ريركا أساو كرنا شينونا حدود دافين نيكا كيريوي هذه دقيشت إيه شرعيقا سودة جيوي إيه مانتا لغو شقي دادك عذاب جري قفكا أنا ريركا وساو كرنا شي كرنا أير حبسي ولودا دي عندر وماشي جولو قادين لأورني إيه لغا دواقي هذا اللي عبدالله وافي جي هالكا مركا مريسو يو عبدالله أحمد مذوبو حكويري إنا دارو نيكا نهشيسي هذه دقيشت نيكا نهشيسي isuka yakeen aan heshiino axmedoobe garti buu galay oday ogaadeen buu ahaa oo dadkan magaranaysaa maamuladii wax noocaas sameeyay odaygii wiilkii ninkii kale sukeen cabdilay si hoose yaa loo heshiisiyay oo loo fariisiyay way heshiiyeen markay heshiiyeen ya axmed madoobe la sheekaystay Khalid si fiican ula sheekaystay waxa weeyaan ayadoo xagga iyo dhinaca iyo geeska la fiirnin ya axmed madoobe Khalid Cabdullaahi waa la soo booday wiilka waas nuure dhintay ee al-shabaab weydishay la leeyahay al-shabaab baa dishay la leeyahay ee sirdoonka Jubbaland haysan jiray ma aaminsanayso dilay sirdoon inay al-shabaab dishaanigu ma aaminsan sababtoo ninka u dhintay waxaan aaminsanahay inay tahay Khalid Cabdullaahi si booska loo geeyay reer Jubbaland waa runta soo sheegay ama special reer kale axmedoobe ka dhashay runta soo sheegay wiilka waas nuure fiicnaaye ee ehludiinka ee salaadka ee shacabka reer Jubbaland ay jeclaayeen ee la yiri al-shabaab nin dhano taliya sirdoone oo ciidan dhan haysto oo bodyguard haysto oo la waardeeyay si al-shabaab inta u timaado madax jibis ugu sameeyay anigu ma aamis anyways anigu opinion kayga hadlaya waxaan aaminsanahay wiilka sirdoonka haysta Jubbaland reasonka u dhintay inay tahay reasonka Khalid Cabdullaahi in booska la geeyo loo baahna la geeyo ma xumo markii la geeyay muxuu sameeyaa power abuse ayuu sameeyaa oo qisamaan loo taan idinka shakiro maqlish hadda arinta taagan ee hadda qoyan baan idin sheegay soo dhawaada oo sii sheergaray aadiya Axmed Madoobe fasduq bilow adeer Axmed Madoobe is going down وانا كفي جينا كسمايو ونا دعيا كسمايو اسبدل با كدعيا كسمايو مدحوينه كلا ايمانيا كسمايو قبيلكو دونا ها نقدو كسمايو مدحوينه كلا اللي هانيسا قبيلكو دونا ها نقدو مدحوينه كسمايو كسمايو مدحوينه كلا تيلنس قبيل كشكين مايو قبيلنا كهلي مايو لكن حقيقه جرتا اي ارنتا جرتا كهليا نولشيدي خلخل قليين انيغي عرورتيدي اسلام iyo odayaal ba soo fakfakarayay maanta أنا أمريكا جوجو نجيسته أنا أمريكا جوجو United States of America أنا جوجو يا إسلامو يا ريال أسجى المداريين يا أنا عرضت الله السعودية إيش فكري ورإلم هذا الريال وهدانك اسمايات نحتاجنا لها وهدانك اسمايات جوجي لها محاذو ملاين إنسان محاي يقول لها إذا كان إذا ويطيرها
haddaan kismaayo joogi lahaa maxaa igu dhici lahaa anoo America joogo yani aniga caruurtaydii aan magaranaysaa handadaadaas nala gelinayaa Axmed Madoobe darti ilaa waa islaamaha iyo odayaasha lacagta dhuxusha u cadeeyo weeye adeer Axmed Madoobe must go qabiil lama haddaad qabiil ka dhigtaan nin walba reer buu tagay anigu nin reer Cabdullaahi ahay nin waxaan ka ayaa kheere hooyadeena waa maama maalguure reebtiyada waa maalguur reer Cabdullaahi labadii ugu laan dheereysnaa waan dhabarka ku hayaa de reer markay tagto reerkaygii baan dhex tagi ayar baasha la qaadan halka jiro laakiin markay siyaasad taaganta Axmed Madoobe waa siyaasi fashilmay oo tuug ah oo khaa'in ah oo calooshiisa u shaqaysta weeyaan oo kuwa lacagta ka qaatana aanan dadka ixtiraamin war hadda saacadana socdaan ka imid aniga iyo caruurtayda ka nimid shoobi kan islaama iyo odayaal baa inugu soo yaacay war waxaan ku yiri war u kaadid Axmed Madoobe waa siyaasi gaba xigtaan haday qabiil noqotona isku reer baan anigu war dakaaliya ku wada xirxiraya aad baan idin meeshan la isgacan la isma qaado arbaa duqbilow waxaa weeye dacwadoodu ku furaya businesskan xaaraanta ah ee ku wada haysataan meelaha ku haysataan ee lacagaha dhuxusha aad ku cadaysaan duqbilow wuxuu idin daba dhigayaa private investigation private investigation waxaa weeye waa qof dambi baare ah oo ka shakinaynin wey haddaad duqbilow garanaysid wajigiisa laakiin duqbilow wuxuu ku daba dhigayaa qof aanan ka shakinin dawladii baad dhacaysaan oo aad leedihiin ma garanaysaa ceer baan qaadanaa ama SSI baan qaadanaa ama xanuun baan nahayaad leedahay million dollar oo Axmed Madoobe uu soo dhacana bangiya Mareykan ku yaalaad ku cadeynaysan oo lacagta dhuxusha oo xaaraanteed ku cadeynaysa halka markay maraysa qabta maxaa dhacay oo hadda taagan oo jiro oo idinka dabageeraya waxaa hadda dhacay oo jiro oo taagan idinka dabageeraya waxaa weeye oo sir ah oo liig ah oo fashil ah oo idin sheegayo oo dhageyna ku dhici doona inaad dhageysto Axmed Madoobe igu taageera inaan rudo fadlan Soomaali weynayn Soomaaliya wuu ciilay mar walba waa ninka shirarka ku qabta Kismaayo ee dawladdanada hor taagan ee madaxdanada caayayo ee rabo dhahayo Jubbaland Kenya وسلام يا كعبير هذا جي سيجس هلا شهر قرياديات هلا شهر قريو ميرفوق اللي جارسيو دجال بكدر هذيات جي سيجس هاد بيدي سلام يا قال هوش هذيات مركي هالكاسي مركي مرش وحاوي جبلان أنا ودشي الروامة أنا قبيل كوشيجر يا كوانا تاجر سري مرة أقري تام مركي لقيت تجنا الدولة الصومالية يا شعبنا الصوماليين waxaan idin leeyahay xabsiga cusub ee dawladda Ingiriisku wasabta dawladda Ingiriiska jeelka jigjiga ku yaalana ayada dhistay ma garan kara dawladda Ingiriisku waxa ay rabto ee ummadda Soomaaliyeed iskaga horkeenaysa loo baabi'inayo garan maayo jeelka cusub ee Kismaayo laga dhisay ee Viad la yiraahdo dawladda Soomaaliya guddiha u dirto dadkii Soomaaliyeed baa lagu cadaabaya ummadii Soomaaliyeed baa lagu cadaabaya shacabkii Soomaaliyeed baa lagu cadaabaya qabiil looguma aabayeelo reerna looguma aabayeelo aadi dhageysta waxa weeyaan maafiya dhuxusha iyo ugaarta Soomaaliyeed gadato shabeelkii Soomaaliyeed baa laga dhoofiyaa libaaxii Soomaaliyeed baa laga dhoofiyaa shabeelkii Soomaaliyeed baa laga dhoofiyaa maroodigii Soomaaliyeed baa laga dhoofiyaa aadi dhageysta maroodiga la dilaa ugaarta la dilayaa dhirtii baa la dilayaa dhuxushii baa la dilayaa bartaas laga dhoofinaya waa maafiya is aruursatay weeye al-shabaabna gacan saar la leh weeyaan balaadi dhageysta maanta arrinta taagan haday qabiil wax taraysan idin sheegaya Soomaali weynay balaadi dhageysta jiisigiisad baa idin salaamaya viva by the way guulaysanayna insha Allah ka guulaysanayna Facebook aad baan ugu guulaysanaa G6 waxa weeye waa urur dhaqaale ma garanaysa G20 way ku dhaqaalaha G6 waa la dheerayaal weeyadiyad dhageysta markay halka marayso waxaa dhacday maalin dhaweeto in ciidan gaarayo ilaa iyo adiga ilaa konton askari gaarayo oo ciidamada Jubbaland kamid ahaa baa baxay oo xanaaqay oo Axmed Madoobe ku xanaaqay waxaa Axmed Madoobe ku xanaaqeen waxay weydiiyeen ku yiraahdeen waay Jubbada dhexe al-shabaab taysato loo naas nuujinaya oo anagu intaan isdiyaarino hubkii waan haysanaa dhaqaalihi waan haysanaa maan dagaalka galno hubkii waan haysanaa dhaqaalihi waan haysanaa maanu dagaalka galno Axmed Madoobe wuxuu yiri way dab darantiina ka taga okay
horta Kismaayad Khaalish Cabdullaahi horta waa laandheero maskax badan Etoobiyana ninka dajiyo kilka shanaada lagu sheegayo ninka dajiyo ee dadka cadaabay way xiniyaha iyo dadka intuu ka goosto mirta ka bixiyo iyo toli baa leeyahay xiniyaha hadda dib u toli adoo hal mir ka baqan tahay oo olol kugu jiro dhibaatada ninka geesta way aad i dhageysto waxaa dhacday inuu markii arrintan dhacaysa Nairobi ku maqnaa wiilal cawliyahan oo beesha cawliyahan la yiraahdo oo jubada dhexe u dhashay yaa xanaaqay oo konton gaarayo ciidan bay la baxeen waxay yiraahdeen annaga iska naga soo abaabulino sidii magaraysaa ee Jowhar korkeeda wiilasha Abgaal ay yiraahdeen ee macawiislayaasha ahaa waan xoreynaa ay dhahayeen sidii oo kaleeto ayay rabeen inay sameeyaan waa baxeen konton askari Axmed Madow wuxuu yiri ma dhaqaaqi kartaan waxna ma sameyn kartaan amar la'aanteed ma sameyn kartaan ciidankii waxay yiraahdeen no way waan jabhadeynayna waan dagaalamayna waan laga dulqaadaya al-shabaab dhulkana waan laga dulqaadaya Axmed Madow wuxuu yiri no Axmed Madow talada ku cadahay wuxuu sameey garan la oo ka baqay hadduu xabad ku rudo wiilasha cawliyahan inay qarxi doonto ogaadeen dhaxdiisa ka qarxaysa ka baqay yaa odayaal toddoba oo ergo oo reerka wiilasha baxay ka dhashay yu gartuu dhiibo galo wiilasha soo xareey ku dhiib wiilashii oo lagula jiro warwaan iyo gargorta lagula jiro oo magaraysaa xaaladii lagula jiro oo sidii arrinta lagu hadlayo yaa ninka sirdoonka u ahaa Axmed Madoobe ee la yiraahdo ana Khaalish Cabdullaahi la yiraahdo oo Nairobi qorsho magaraysaa ugu maqnaa howlo shaqo ugu maqnaa yaa magaalada soo codhigtay waxa lagu yiri arrintaas ka dambayso wuxuu yiri odayaashan miyaha warqad buu